Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta wadannada Afrikaanka qaarkood waxay hooseeyaan toddobaadkii sayniska. Toddobaadkii sayniska oo dad qaarkood ay waxaynayaan bahalo ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay dadku ku shaqeeyaan amba waxyaabaha ku saabsan sayniska. Maasha Allah maanta haddii taana carruurta la tuso carruurtu way ku dheeli tirnaysaa waxay doonayaan markii kaste ay dooni doonaan intay waxayaan amba hawaabi u noqon doonaa waxaanay arkayaan siday u waxayn lahaayeen. Carruurtan markii kaste haddii la tuso wax laga ka yaabiya waxa ay ku dadaalayaan oo laga yaabaa qaarkood ama inta ugu badan mukhadaraad ay ku dhici lahaayeen amba markii weynaadaan waxyaabo ay tacliinta ay dheersin lahaayeen marka la tuso wax weyn amba tacliinta la jeclaysiiyo laga yaabaa intay noqdaan ama ku hagaagaan ay ku dadaalaan tacliinta marka aan ka bal qayb galno amba waxna la quseeyeen sayniska hawlo dhageysano insha Allah maanta anu waxaan doonayaa intaan la wadaago arrin ku saabsan sayniska inkastoo aan ka soo hadlay fiidiyoashayda sayniska qaarkood imka video aan ka hadlay maskaxda dadkan maskaxda xanuunka ku dhacay la yiraahdo schizophrenia aan ka hadlay macala dadka suuqduweyga waxyaabaha ay ku dhacaan si wadana silsiladii waxaan ka hadli doonaa maanta maskaxda xarunta ugu muhiimsan jirkeena oo ah maskaxda maanta hadii aad fahamtid maskaxdaada say u shaqeynayso amba aad garitid maskaxdaada aaladda yar Ilaahay ku siiyay maskaxdaada ee xagan taala sida u shaqeynayso waxyaabo badan baa wallahi noloshaada ka baranaysaa waxyaabo badan oo ku hagaagaya waxaan doonayaa intaan la wadaago buug inuu qoray oo muhiim ah hagaygu arkayo oo la yiraahdo libéré votre cerveau oo dirisa baxkan qoray ninkaana wuxuu ka sheekeynayaa maanta maskaxda marka la yiraahdo waxa arkaysaa waxyaabo badan ay dadku maskaxdeena ku daabaceen marka ka soo qaad yaraantaadii ilaa ma imika dad badan baa wax kaaga sheekeeyay hooyada baa wax kaaga sheekeeyay asxaabta wax kaaga sheekeeyay dadka la jartahay dad kastaba maanta maskaxdaada wax bay ku daawaceen wax bay ku aansaleeyeen bal waran karayaan loo disheelo marka maskaxdaada waxyaabo badan baa ka shaqeynaya waxyaabaha badanna dad ay ku daawaceen wax raali ah ka tahay wax raali ka hayn mushkiladuna waxa weeye wax raali ah ka hayno badan baa maskaxdaada ku jirta ka soo qaad maanta ardayda markay yar yihiin ay doonayaan intay carruurta markay yar yihiin markii kasta wax kasta way gaari karayaan kuwa hagooga hawaawi kasta way leeyihiin hawaawi kasta way gaari karayaan ma sida dadka waaweyn oo ay markii dadku weynaadaan hawaawigii way ka yaraadaan laakiin carruurta markay yar yihiin wax kastaba hagooga way gaari karayaan marka waxa arkaysaa carruur qaarkood markay macallimiin amba wax dhigayaan amba ay wax dhiganayaan markay joogaan dugsiyaashooda ka soo qaad arday baa maanta iska jooga waxa uu dhiganaya wuxuu ku guuldareystay imtixaan ku guuldareystay ku saabsan xisaabaadka aad buu guuldareystay ka soo qaad wuxuu keenay 0 waxa arkaysaa qaarkood amba macallimiin in yar qada waa dhowr qof oo u iimanaya ardaday oo kale weligaad uu xisaabaadka xariif kuma noqonaysa amba weliga xisaabaadka kuma ka talagelin imaha yar maskaxdiisa wuxuu kala dhicinayaa weligii xisaabaadka inta lagu talagelino maanta dil laga yiraahdo wariya Axmed oo ka soo qato salaam magaciisa Axmed dil yar war Axmed oo kaalay 5 + 5 5 + 5 + 3 + 4 waa imsa wuxuu kaalay joog aan macluumaad waxay iga tar xisaabaadka xariif matiide qof kale uu la tagay aan xisaabaadka ma garanayo marka imaha yar weligii amba noloshiisa inta ka hadhay wuxuu orod doonaa xisaabaadka ma garanayaan taa waa tusaalayaal badan way jirtaa xisaabaadka in ha noqoto noloshooda la maariyo waqtigaaga la maariyo qof fiican oo loo noqdo waxyaabo badan bay maanta dadku ka dhaadhiciyeen oo isleedahay weliga haba yaraatee kama badbaadisid ama iskama bedeli doonto waa sidoo kuugu qoray anu shakhsiyadeeda haddii aan ka hadlo markaan yaraa hawaawi waxaan iska lahaa iska waalan ama weyn baan lahaayo waxaan doonayay intaan waxayo ama aan tago dayaxa dadka la yiraahdo Farsiis baalkii astronaut ayaan doonay intaan noqdo aan ka baxo planeetkan aan ku noolnahay aan arko planeetada kale si u jiraan marka macallin baan weydiiyay su'aalo wuxuu yiri war maxaa doonaysid intaan noqotin markaad weynaatin aniguna hoostaan kala ma sha Allah maanta macallinka uu sheegaysa waxa doonaysid marka mid kasta bada ardayaashii mid kasta wax uu qoray qaarkood waxay qoraan waxaan doonay intaan noqdo madaxweyne anigu waxaan doonay intaan noqdo bahalkii dad weeya anigu waxaan doonay mid kasta wax uu sheegay anigu booka mid kasta wax uu sheegay markaan kiraan waa soo noqon doonay inta noqdo macallinkii qosol buu ka kacay anigana wallahi aad bay ii taabto qosol ma hadee qosol kaftan meehayna baxayd qosol de waxay ka ardayguna markuu macallin jecel yahay uu arkay de macallinka qof de cilmi loo de isagana wax badan u sheegay oo ixtiraami aad markuu aad ugu qoslo oo kida wax ma waxaynaysid waan yajabaysa aniguna hawaawigii yaraan korinayay ilaalshaday baa maalintii kala daato kadibna wala in jabay soo dur saartay laakiin maalmo ka sii dambaysa waxaan arkay
aan la kulmay domain kale amba wax kale oo informatiga wala garanaysiin kadibna hagaa baan alxamdulilah lama aan wadaa ku takhasusay marka waxaan laakiin haddii aan wax kale la kulmin ama domainka kale informatiga la kulmin maanta waxaan isweydiinaya noloshiisa ay noqon lahayd maanta arday markuu yar yahay oo loo diido amba laga yidhahdo waxa ma waxaynaysid oo isaguna uu haysa maskaxdii lagu talagalay uu oran lahaa ama dee experience-kii amba waxyaabihii dee uu facilitate lahaa qofkas u dhageysano uu dee amba dad kale iska doono uu lahayn uu qofka kaliya ixtiraamaya amba ha noqoto weydii aabihii amba ha noqoto macallin wax u dhigaya amba ha noqoto qof uu ixtiraamaya hagiisa markuu wax ka iraado isaga hagiisa wax weyn buu lato kadibna uu niyajabay marka wallahi dad badan oo maanta niyajabay oo waxyaabo badan doonay intay waxayaan laakiin nasiib daro dadku waxay ka yiraahdeen ay qaateen oo haba yaraatay noloshooduna ay saa ku baabaaday dad badan baa arkaysa maanta marka wax kasta hadii lagu ka yiraahdo laba shay baa haysta maanta marka la soo tirshaajeysay internetka amba waa isticmaali karaysaa amba waa baabi karaysaa marka mad kastaba dadku waxay ku yiraahdaan adiga maskaxdaada haya muftaxeego amba ku daabaca karaysaa waa taabanaysaa butonka click install amba waxa leedahay logicielkan amba waxan imu ajibinay liguma talagelin maskaxdeeda mid kale aan doonaya marka eryaashii dadku kuleeyeen waa saawayaan maanta hadii mid kastaba saa u araysid wax maskaxda ma geliyo mise ma geliyo iska tuusid waxyaabo badan baa wallahi maskaxdaada kala sameeyo logicielladii kugu fiicnaa amba kugu ka talagalin baa ku shaqeynaya maskaxdaada marka horta garo maanta waxa garataa dad badan inta wax ku ansaleeyeen waxaana iska disaastaleeyo ku dhaqaaq sidaas oran lahayd waxa ay ku dhan xog kama jiraan oo ka wala baabi maskaxdaada haba yaraatay marna ha ugu galaan inta dadku wax kale ku ansaleen logiciel kale aad uga raali kahin maanta markaad eegtid dadkii saa lagu yiri la dheersaday markii kasta laga yiri waxa ma gaaraysid dadka waxa kamid ah in la yiraahdo Alibaba ninka waxay amba AliExpress Djibouti wala gaar isticmaalay imka Shiinaha ninka intuu waxyaabo badan buu nolosha ku guuldareysay dadku ka yiraahdeen ma waxin karaysid kuwa soo qaad iskoolka ku guuldareystay iska wada wax kale shaqayaal yar oo bila macniya oo infasaad McDonald's baalki KFC laga shaqeeyay Prito waxyaabo badan ayuu ku guuldareystay ninka haddana isagoo guuldareystay maanta wuxuu joogaa amba wuxuu yahayba dadka ugu lacag badan Shiinaha ما شاء الله marka aragtid dadka ay kulana waxa is leedahay haba yaraatay niyadku wax aw noloshada ugu galaanaysid ma maskaxduna maanta waa wax muhiim oo hadii ay istiraahadid maanta waxa ma karaysid waligaan ma kari doontid laakiin hadii maskaxdaada yar ka dhaadhaysid waa karaysaa ku dadaal waa karaysaa insha Allah marka tusaalayaal badan way jiraan dad saaya oo maanta maskaxdooda iyagu iska dhaadhiciyay waxay doonayaan u diiday logicielada dadka kale intii ku asalayaan ka yiraahdaan adoo waxaan ku dhaabaa dawladdu imka soo qaad Faransiiska waxbay doonaysaa ka dhaadhiciso dawladda Djibouti waxbay doonaysaa ka dhaadhiciso dadku kale waxbay doonayaan inta ka dhaadhiciyaan mid kasta wuxuu doonayaa intuu ku aansaleeyo amba kugu beero wuxuu doonayaa sidoo uu u noqon leeyahay shakhsiyadu doonaysid uu shakhsiyadu iyagu doonayaan dadka ay ku dhan laakiin hadda istiraada anu waxaan doonayaa saaye waxaan sheegaysiin oo ku dhan igala joogsada marka wallahi waxyaabo badan ba maskaxdaada ka bedeli doonto insha Allah waxa doonaysid waa gaari doontaa marka maskaxdeena han sifayno han ku ansaleynina waxyaabo jadiid insha Allah waxaan soo saari doonaa dhawaan video yar kooban oo mirira oo kaga hadli doono waxyaabo badan oo ku saabsan haba noqoto maskaxda ama ha noqoto arin adig ku saabsayso markii kasta wax ku tiri doonto insha Allah waxaan ku rajeynayaa maalin wacan khayr bash barwaaqo iyo maskax fiican aan ku ansaleyno waxa jecelahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh